ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay allay leedahay aryaadaha heer Kalamaano anigu waydan la taliha waxbardaan barwaaqa gaarne warniyo maanta carab waa iska bedeshaa malayna carab loodaad ku haystay war carab loodaad waa qaaliyooday carabka loodu umunuga u roon yahay maxay nagu qaaliyeeyeen war macaynigana waxbarasho ku gaadhay miya nin walba allaha sug maanta war yaab leh ayaa idinka yimid oo 80 jir ah ayaa bala wax badha isla 80 jirna waxay leedahay umuloba hayo carabkii looda lagu qaali gareeyay waaba arin cajiib ah war wax kasta oo la sheegay qoodhi wuxuu u maleeyaa inay ixtiraafka la hor istaagay war naag Chinese oo qudaar ku gada Somaliland ayaa bana ixtiraaftay maada warbahaya aryaadaha warkayga dhaxgelinay waxbardaan idin iriyay dhageensada Somaliland waxa la sheegay arday 400 ka badan oo deeq waxbarasho Itoobiya ka helay inay jaamacada u aadeen Puntlandna intaasoo kale la sheegay inay jaamacada u aadeen muga waxaan la yaabanahay Itoobiya deeqda waxbarasho ma lamadaas laan kale yahay siisay mase inta kalena waa siisay waa qarsahayaan warwar ma ogidi wasiirka waxbarashada baarlamaanka wuxuu ka jeediyay ma ahayn deeq waxbarasho waxay ahaayeen hidaha qarsoon Soomaalida waa ku wareereen laakiin aniga markaan xuraansi carrada u galay waxa la yiri NGO UNESCO wadata way marka waxaan la yaabanahay waxa baarlamaanka hawl u yaala iyo NGO golaha ka hor arganayo aryaa wax la qarsho ama waa qurmaan ama waa qubtaane shib naga dhah Cabdullaah mahmaayada ku dheerin xalaal barqa la qashaweeye war mahmaadan ka dheelena saar walaha min leelki luntumaa lugaan la bangal leere war mahmaayada ku dheelin ciyaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabay ahayd war mahmaayada ku dheeline soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa arqowdhalow saas maahina afkay ku cuntay ku heybay waaye war Cabdullaah adna ku dheelin baasho wax taga tiigsimaad male weeye war mahmaayada ma taqaanina ku dheelina islaan dhali weyday aleela ku waalataya la yiri war saas ma ahayne waxa la yiri reerba ay beena biisay ar sidaas ma ahina heerba oo yaa kule waaye war saas meedad koona baruura jibiyo dad koona baahi dhamaayo haytu war mahmaayada ku dheelin saas ma ahane reer rag leh roobsaan ma u galaabay ahayd war rag waxay ku maamaahan dumar beena lagu soo xarigeliyaa runtuna waa lagu dhaqaa war gabdho hadda waa bedeleen mahmaayadaas rag meeg abba lagu soo xarigeliyaa bay yiraahdeen midabkaagana waa lagu dhaqaa aryaadaha sidaas oo dhanba maahina waxa waaye ninna shaahow shuba waayay ninna shaarka ku yaraaday waaye war saas ma Cabdulle shabshablow shiinka quraanka ninkii sheega ma shallaayo waaye Cabdulle wareerda Somaliland iyo Puntland deeqdii waxbarasho heleen waa cadeen ardadiina waa dirayaan inteena kale ma beec bay noota ma gadanayna wararta waxa la yiri dawladda waa hooyo musuqna waxa uu daran baa la yiri hooyada lagu aamini waa caanaha ilmaheeda warba musaasada ka cabta caanaha ilmahooda rag baba jaad quuna walaa waxa hore loo yiri oo maray soo riis nuugtayo wixii laga raabay rabta maray riis nuugtayo wixii laga raabay rabta yaahu war mahmaayadu sidaas maaha nin bukan nin baahan barax looguma dhiibaalay ariya mahmaayada hayga dhaxgelina shibiga dheh waxa kale hore loo yiri oo rinoolu ridhimatayay karoonto reejay qabta rinoolu ridhimatayay karoonto reejay qabta allah naxariiste Abdullaah warka eedeeda angoradii Puntland iyo Somaliland raje gabangu war maxaad beenta u sheegaysaan kuwaas annagaaba nabad iyo nolol haysanoo kale jafiican nabad hee hore midaysa ugu biiray war ma haysiine Kenya iyo Soomaaliya waa heshiiyeen leeri badii yaa la sii badii maxaa ku bedelanay 4 sano soo socota ama la isku dhakan yahay xal lagu heshiiyahay war xanuun idin hayaa idin ka soo burqaday warka naga dhageysta laba dawladood waxay ku heshiiyeen inaan dacwada baddu ganacsiga iyo bini'aadanimada saamayn muga ma Kenya loogu danay hay'adaha qaad ku baaraah war annaga ma lacag aan ugu baaraysa waxaan u
malaynayaa raggii qandalada bilaqada lagu galo inta furtay ibnu cabbaas iyo ibnu cumar ula baxay inuu ka mid ahaa adigu waxaad ilaag tahay ninkii gaariga uu soo dhacay tabeetigiisa safaru salaama ku qortay wareer koonfur hoobeena siin baranay basno era kii geela inya soo dhacaaniisa inya ka dhergo meel seexda allow nabad noo naadi dhahayo kale waayo waryaa aniga ima dhihi karti warkaas yaa geed yaa ka soo dhacday iga tagiyo wallahi waryaa dowladnimadii la dhacay geel maxaa ka sheegay waryaa warkaadaha wallahi horta indha geelle indunuusiyaan miya